السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت بدر واحد عدا أرضي مركي جامعة هاي كقلن شبيان واللي بس سند كبش سجالات بش الطبنات بش كوبي الطبنات وقطن بين صدق ذا بلود أنت أول حيسة أنت بدر أرضي ده وحكود ع فكر أحسدية أتشغل أكسن هذه الهيد وأنا وحيد تجر قليه هنا إن بدر برضي وحسب برناي مدلح طبعا صندوق أيوه حسب برناي تمركوا وحيو برناي إنه ما أنت وقت كان هذا إنه شغله إنه سفي عن شقوحي وصبرتي وكهلا وحسب تشعلي هاي bulshada iyo reerkiisa iyo qoyskiisina ay ka sugayaan muuqaalkan isaga ah waxaan kaga warrami doonaa tiraba 6 talo oo aan rajaynayno wax badan ka caawin doonaan sidii aad shaqo fiican aad u heli lahayd bal aan ku soo dhawaado 6 qodob iyo faahfaahintooda qodobka koobaad waxa uu noqonayaa inta badan marka aad shaqo raadinaysid waxa fiican halkii shaqada laga heli lahaa inaad ogaato marka aan ku soo dhaweeyay fikradda waxa jira websites ay dadku aad iyo aad u adeegsadaan kuwaas oo ka saacidaya sidii aad shaqo u heli lahayd inta badan waxa la soo dhigaa shaqooyinka cusub ee loo baahan yahay sida ugu dhaqsaha badan leh waxa soo dhigaa hay'adaha waaweyn waxa soo dhiga shirkadaha iyo kambaniyada waaweyn ganacsiga waxa soo dhiga wasaaradaha xukuumadda intuba waa ay soo dhigaan marka bal xagga hoose waxaad ku arki doontaa biidilaahi tacaala oo ku yaalaba imikaba waxa weeye website-ka ugu caansan ee Soomaalideenu ay ka eegtaan wixii shaqooyina haddii qaar kale ay jiraan waxaan isku dayi doonaa inaan xagga hoose aan kugula wadaago ee comments-ka ugu hooseeya ayaad ka eegi doontaa biidnillah qodobka labaad ee ka saacidaya inaad shaqo fiican heshaa wuxuu noqonayaa in si wanaagsan oo habaysan oo dhameystiran aad u diyaariso CV-gaaga haddii CV-gaaga aanu ahayn mid hagaagsan oo qurux badnayn haddii aanu ahayn mid professional ah mid aan u dhisnayn haddii uu yahay mid aan soo jiidasho lahayn ogow cidina akhriyi mayso kuwii ka aqoonta hooseeyay kaana xirfadda yaraaba suurtagal ah haddii CV-goodu ka qurux badan iyaga la qaato bal marka iyada lafteeda inaad wax ka ogaato waa muhiim oo aad isku daydo inaad barato sideeba CV loo sameeyo qurux badan soo jiidasho leh haddii ilaahay yiraahdo qodobka saddexaad waxa uu noqonayaa in aad ku dadaasho in shaqooyinkaaga iyo waxyaalaha aad ku fiican tahay in baraha bulshada lagala socdo waqtiyadii hore waxa suurtagal ah marka shirkadu ama ba company uu qaadanayo cid kale in la soo waraysto la yiraahdo war hebel bal ka warama ama heblaaye ka warama dhaqankiisa ka warama aqoontiisa ka warama kartidiisa ka warama laakiin imika intan dambe waxa dhacda in qofka laga baadho cid uu yahay iyo waxyaalaha uu xiiseeyo iyo waxyaalaha ku fiican yahay iyo sida uu yahay intaba waxa laga baadho baraha bulshada profileska uu ku leeyahay sida awgeed waxay ku leedahay taladan iyada ama qodobkan isaga ah ku dadaal inaad qurxiso oo aad hagaajiso oo si fiican oo qurux badan aad u habayso profilada aad ku leedahay baraha bulshada kuwaas oo ka saacidi kara inaad hadhow shaqo fiican aad hesho waxaad iska hagaajinaysaa sawirka waxaad iska hagaajinaysaa magaca waxaad iska hagaajinaysaa astaanta bio waxa weeye sifada aad naftaada ka bixinaysid waxaad iska hagaajinaysaa posts kala duwan aad soo dhiganaysid intaasi waa waxyaalaha ay tahay inaad iska hagaajiso si hadhow arrintaas ay ka saacido inaad shaqo fiican aad hesho sida awgeed iska hagaaji profileska aad ku leedahay baraha bulshada intaanad muuqaalkan isaga aanad ka bixin waxaan jecelahay inaan kula wadaago shaqo doon haddii aad tahay arrinta iyada ahi waa arrin aan inta badan jaamacadaha aan lagu dhigan sida awgeed hababka CV-da loo diyaariyo hababka interviewska loo galo hababka wax loo raadsado hababka networking loo sameeyo waxyaalaha ka sii badan oo ka sii muhiimsanba waxaan ku soo koobay course aan u bixiyay shaqo doon plus marka haddii aad jeceshay arrinta iyada waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad macluumaadka course ku saabsan aad xag hoose aad ka eegto waxaaba suurtagal ah in wax badan uu ka saacido noloshaadana wax badan uu ka bedelo soo dhaw qodobka kale kan ku sii xiga waxa uu noqonayaa waxa muhiim ah oo aad iyo aad u muhiim ah in aad mar walba aad ku dadaasho inaad shaqo doon tahay dadka la wadaag waxaad la wadaagtaa cidii aad taqaano haddii family-ga ay tahay haddii ay qaraabada ay tahay cidii aan warkaaga ahayn haddii ay tahay asxaabtaada haddii ay tahay jaarka haddii ay tahay dadka aad wadaagtaan masaajidka kuugu dhow dadyoga aad wax wadaagtaan aad isku dhowdihiin ha noqdaan dadka ugu horeeya og inaad shaqo doon tahay arrintaas markaa waxay ka saacidaysaa ama inay haddii shaqo ay ogyihiin ay kuu sheegaan amaba cid kaloo shaqo raadin karta waxa suurtagal ah inay xiriir fiican ay idin sameeyaan marka bal la wadaag inaad shaqo doon tahay dadyoga kugu hareeraysan waxaad ku dadaashaa dadyoga mobilada kugu jira faraha badan leh ee ku safe garaysan in iyaga laftooda bal aad u sheegto war hooy shaqo doon baan ahay haddii inuun aad waxa weeye ugu saacidi kartid meel ay shaqo ka jirto waxa weeye waad la soo xiriiri kartaa taasina way ka saacidi kartaa waxa aad noolayn kartaa oo si fiican aad arrinta iyada aad dadka aad ugu sheegi kartaa inaad shaqo doontay waxay baraha bulshada aad ku leedahay halkaasoo kumanaan kun oo qof ay arkayaan wixii aad soo baratay iyo shaqooyinka aad jeceshay taasoo hadhow ku saacidi karta
inaad shaqo fiican hadasho marka bal dadka mar walba kugu hareeraysan ama ku dhow ama aad isku xirantiin iyada lafteeda la wadaag oo hala khajilin wada allaali wada kastood marta iyo qof kasto oo aad taqaanid mid walba u sheeg inaad shaqo doon tahay xiisaynaysidna inaad shaqo fiican aad hesho inuu bi ku saacido doonto arrintaas qodob kale muhiim ah wuxuu yahay haddii aad doonaysid inaad shaqo fiican aad hesho waxa muhiim ah in aad waxa weeye aad diyaarsato liiska shirkadaha iyo goobaha shaqo ugu waaweyn ee aad jeceshay inaad shaqo ka hesho inaad diyaarsato waa ku muhiim marka dhowrka shirkadooda ugu waaweyn ama ugu fiican aad doonayso inaad mustaqbalka u shaqeyso bal isku day inaad diyaarsato inuu baarintaasi ka saacidaysa inaad shaqo ka hesho oo ay focuskaaga meel aad saarto ayaad helaysaa qodobka kan ku xiga ee mid uu ku dambeeya wuxuu noqonayaa maadaama aad shaqo doon tahay waxa fiican in aad ku tababaratid waxa loo yaqaan interviewska marka qofku shaqo u galayo dabcan kulan baa la yeelanaya kulankaasi waxa uu qeexi karaa ama uu sheegi karaa kuma ku guuleystay shaqada iyada si kumaan ku guuleysanin marka waa inaad ku dadaashaa oo aad ku tababarataa intaan interviewba lagugu yeedhin hababka interviewga loo galo su'aalaha ugu badan la isweydiiyo hababka loogu jawaabo hababka loo soo jiito waxa way indhaha dadayga ku wareysan doona marka intaanad interview galin ku tababaro sidii interview loo gali lahaa ugu dambeyn qodobka ugu dambeeya wuxuu noqonayaa inaad samaysid follow up meelihii aad xaraysay ama dadaygu ku ballan qaaday inay shaqo ku siinayaan si joogto ah ula xidhiidh adigoo marka ugu horeysa uga mahad celinaya dadaalkii iyo wanaagii iyo sidii fiicnayd ay kula dhaqmeen isla sidoo kalena ka wareysanaya miyay jirtaa wax war ah oo ka soo baxay shaqooyinkii aad xayisiinayseen aniguna aan soo xaraystay intaanad muuqaalkan isaga aanad ka bixin waxaan jecelahay inaan kula wadaago shaqo doon haddii aad tahay arrinta iyada ahi waa arrin aan inta badan jaamacadaha aan lagu dhigan sidaa awgeed hababka CV-da loo diyaariyo hababka interviewska loo galo hababka wax loo raadsado hababka networking loo sameeyo waxyaalaha ka sii badan oo ka sii muhiimsanba waxaan ku soo koobay course aan u bixiyay shaqo doon plus marka haddii aad jeceshay arrinta iyada waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad macluumaadka course ku saabsan aad xag hoose aad ka eegto waxaaba suurtagal ah inuu wax badan uu ka saacido noloshaadana wax badan uu ka bedelo soo dhaw halka waxaan kugu sheegay 6 qodob oo muhiim ah oo aan rajaynayo inay si fiican ay kaaga saacidi doonaan sidii aad u heli lahayd shaqo wanaagsan oo fiican haddii mowduucan isaga wax badan uu ku taray ilaabin inaad asxaabtaada la wadaagto waayo waxa suurtagal ah dad badan inay si fiican uga faa'iideystaan xalqadan aad daawanaysana wax badan bay u taraysaa oo dad badan bay gaaraysaa marka intaa kala bakhaylin maadaama wax ku siiyay adiguna intaa ku darso hadduu ilaahay